Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago filim khiyaali ah kaasoo lagu magacaabo The Man Without Gravity. Daawasho wacan, iskana taxadara. Filimku waxa uu ku bilaabmayaa iyadoo aan aragno haweeney lagu magacaabo Natalia iyo hooyadeed Alina oo duufaan dhexdeed ku sii socda isbitaalka. Natalia ayaa ah gabadha markaa foolanaysa xanuunka haya darteed. Hooyadeed ayay ka codsatay in ay degdeg u kaxayso baabuurka. Markii ay soo gaareen isbitaalka, kalkaalisada qaabilaadda joogta ayaa ku wargelinaysa in aan waqti xaadirka la heli karin dhakhtar. Sidaa darteed, iyada laftigeega ayaa waxay caawinaysaa gabadha. Natalia ugu dambayntii way umushay, laakiin ilmuhu ma uusan ooyin. Run ahaantii waxa uu sabeeyey hawada sidii uu fudud yahay oo kale. Saddexdoodii oo yaaban ayaa Natalia inta ay qabatay xudunta si tartiib ah ugu soo jiiday xaggeeda. Natalia iyo hooyadeed waxa ay la carareen ilmihii dhashay iyagoon waxba u sheegin kalkaalisadii. Natalia waxaa ka badatay farxaddii, waxayna ogaatay in ay dhashay ilmo gaar ah oo mucjiso ah. Guriga markii ay timiday, waxay u qaadatay Natalia in haddii uu wax cuno uu joojin doono in uu duulo. Alina ayaa weydiisay waa kuma aabbaha wiilku, laakiin waxaa soo baxday in Natalia aysan garanayn, sababtoo ah waxa ay ahayd wareegto. Alina ayaa markaa ku dhawaaqday in aan la ogolaan doonin in uu ka baxo ilmuhu guriga, waxayna rabtaa inay ka ilaaliso adduunka naxariista daran leh. Subaxdii xigtay, Alina ayaa waxa ay ku toostay ilmaha oo saqafka ku hurda. Si taxadir leh ayay hoos ugu soo dejisay, waxaana ay labadoodii ula baxeen Oscar. Kadib, 4 saaxiib oo Alina ay leedahay ayaa yimid albaabkooda si ay u ogaadaan ilmihii dhashay. Natalia waxa ay ilmaha dul dhigtaa sariirta, waxayna ku dabooshaa buste. Dumarku waxba kama shakiyaan. Mid iyaga ka mid ah ayaa isku dayday in ay kor u qaaddo Oscar, laakiin Alina uma ogolaan, iyada oo u sheegaysa in ilmuhu weli jilicsan yahay. Labadooduna waxay ka dhigaan saqafka guriga mid raaxa leh si uu ilmuhu si xor ah ugu seexdo. Alina waxa ay dadka u sheegtaa in Oscar uu xasaasiyad ku leeyahay qorraxda, sidaa awgeed aanu dibadda u soo bixi karin. Dhowr sano kadib, Oscar hadda waxa uu noqday ilmo qurux badan. Ilaa hadda looma ogola in uu guriga bannaanka uga baxo. Nolol maalmeedkiisana waxa ka mid ah in uu dadka ka eego daaqadda iyo daawashada Batman ee TV-ga. Alina ayaa guriga ku barta sida wax loo akhriyo loona qoro. Maalin maalmaha ka mid ah, Natalia waxa ay u samaysaa jaakeed ay jeebadiisa ku riday wax culus, taasoo Oscar ka dhigaysa in uu si fudud dhulka ugu socdo. Natalia way faraxsan tahay, sababtoo ah hadda inankeegu waxa uu tegayaa iskuulka. Si kastaba ha ahaatee, Alina waxa ay ka soo horjeedaa in uu ka baxo guriga ammaankiisa awgeed. Xataa marka ay Natalia ku adkayso, Alina kama ogolaato. Maalin maalmaha ka mid ah, Oscar oo keligiis jooga guriga ayaa inta uu daaqadda furay waxa uu damcaa in uu ka baxo. Markii ay Alina iyo Natalia soo noqdeen, way naxeen markay arkeen daaqadda oo furan. Markii hore waxa ay u maleeyeen in Oscar uu ka cararay guriga, laakiin sida muuqata, jaakadda Oscar ayaa ka dhacday isagoo oo ku dhagay saqafka. Alina waxa ay bilowday in ay xidho daaqadaha, laakiin Natalia waxay doonaysaa in ilmaheedu dibadda u baxo oo uu arko adduunka dhabta ah. Hooyadeed ayay la dagaalantay, oo habeenkaas bannaanka ayay ula soo baxday Oscar. Intii ay wada socdeen, waxa ay u sheegtay in awooddiisu ay sir u ahaato si uu naftiisa uga ilaaliyo ciyaalka xun. Uu dhutiyaa marka uu socdo, maadaama aanu in badan ku socon noloshan. Maalintaas wixii ka dambeeyey, Natalia waxa ay bilowday in maalin walba ay kaxayso. Qacmaha inta ay qabato ayaa Natalia xataa waxa ay baraysaa in uu si fiican u socdo. Maalin maalmaha ka mid ah, Natalia iyo Oscar oo wax iibsanaya ayaa waxa ay kaga tagtaa dukaanka bannaankiisa. Inta uu sugayo ayaa gabar yar oo Agatha la yidhaaho ku dul dhacay, kadibna uu ka daadiyey raashin ay wadatay.
inantii yarayd way ku xanaaqday, waxayna ka codsatay inuu ka caawiyo sidii ay raashinka ugu qaadi lahayd gurigooga. Markii hore Oscar wuu ka welwelay, laakiin markaas wuxuu aqbalay inuu ka caawiyo inuu la qaado raashinka. Labadooduba way ka fogaadeen dukaanka, waxayna ka sheekaynayaan dhowr waxyaabood oo kala duwan intii ay soo socdeen. Markii ay cabbaar socdeen ayuu Oscar ku daalay culayska jeebkiisa ku jira oo uu dibadda u soo saaray. Miisaanka dhalooyinka oo keliya ayaa iminka isaga ku xajinaya dhulka. Markii ay soo gaadheen guriga Agatha, waxa ay weydiisay dhalooyinka. Isaga oo og in la'aantood uu duuli doono ayuu Oscar diiday. Labadii dhalo ayayna kala jiiteen. Ugu dambayntii dhalooyinkii ayay tuureen. Mar haddii miisaanku uu dhammaaday, Oscar waxa uu bilaabayaa in uu duulo, laakiin saqafka ayaa qabtay. Inanta yari waxa ay u qaadanaysaa in uu yahay geesi aad u sarreeya oo way daawanaysaa isaga oo baqaya. Shandadeeda ayay siisaa si ay dhulka ugu xajiso, waxaanay u ballan qaaday inaanay cidna u sheegin. Natalia waxa ay joogtaa guriga iyada oo ka welwelsan dhimashada wiilkeeda. Markaas ayuu guriga yimaadaa isagoo ordaya, wuxuuna u sheegaa hooyadii saaxiibtiisa cusub. Markii la weydiiyey in ay ogaatay awoodaha Oscar, waxa uu sheegay in aanay garanayn. Laga bilaabo maalintaa, Agatha iyo Oscar waxa ay bilaabeen in ay wada ciyaaraan, iyada oo maalin walba u iman jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah, Agatha ayeedeed ayaa keentay guriga. Iyaga oo wada hadlaya ayaa Natalia waxa ay ogaatay in Agatha ay ogtahay kartida Oscar. Sidaa darteed ma ogolo Oscar inuu la ciyaaro iyada laga bilaabo maalinka. Agatha waxa ay maalin walba booqataa guriga Oscar, laakiin Natalia had iyo jeer waxa ay samaysaa cudurdaar ay ku celiso. Maalin maalmaha ka mid ah, Agatha waxa ay u keentay ayeedeed Oscar, laakiin Natalia ayaa iska diiday, iyada oo u sheegtay in Oscar uu dhiganayo cashir. Laakiin Agatha ayaa sheegtay in aanu Oscar aadin iskuulka. Agatha ayeedeed oo ay weheliyaan haweenka kale ee magaaladu ayaa ugu yeedhay boolis guriga Natalia, waxayna ka dalbadeen Natalia iyo Alina in ay Oscar iyo Agatha wada dhigtaan iskuulka, wayna ku heshiiyeen. Hadda waa maalinkii ugu horreysay ee Oscar uu dugsiga imanayo. Natalia ayaa soo galaysa, laakiin waxay ogaatay in carruurtu ay tahay in boorsooyinka dhabarka iyo koodhasha ay dibadda kaga imanayaan. Si lama filaan ah ayay ugu soo celisay gaarigii, waxayna ku soo noqdeen gurigoogii. Ugu dambayntii waxa ay go'aansadeen inay u guuraan magaalo ka fog si ay uga fogaadaan qof kasta oo hubinaya xaaladda Oscar. Dhowr sano kadib, Oscar ayaa hadda noqday nin weyn. Alina way dhimatay. Oscar iyo hooyadii waxa ay u guureen buuraha, halkaas oo ay ku nool yihiin nolol caadi ah. Oscar had iyo jeer waxa uu wataa boorasada dhabarka. Maalin maalmaha ka mid ah, waxa uu arkay xayeysiis ku saabsan TV-ga oo ah bandhig kartiyeed. Ku dhawaaquhu waxa uu ku boorinayaa qof kasta oo leh karti gaar ah inuu soo bandhigo. Oscar ayaa raba inuu ka qayb qaato bandhigga si uu u soo bandhigo kartidiisa, waxaana uu go'aansaday inuu ka tago magaalada isagoo aan u sheegin hooyadii. Dhowr maalmood kadib, Oscar waxa uu joogaa bandhigga hibada, halkaasoo uu qof walba ku tusayo awooddiisa duulimaad, taas oo dadkii oo dhan ka yaabisay. Qaar ka mid ah ayaa u haysta inuu Oscar mucjiso yahay. Oscar ayaa soo jiitay indha-indheeye hibo leh oo lagu magacaabo David, kaasoo bixiya abaalmarinta. David wuxuu u sheegay inuu wici doono bandhigga TV-yada si uu u muujiyo kartidiisa. Riyada ugu weyn ee uu Oscar leeyahay waa inaa buug laga qoro isaga. David ayaa u ballan qaaday inuu taas samayn doono, isaga oon ka laabanaynin. Oscar waxa uu heshiis la saxeexday David. Dabadeed David waxa uu u dhiibay magaca A Man Without Gravity, oo macnaheedu tahay nin aan cuf isjiidad lahayn. Kadib markii Oscar uu saxeexay heshiiska, David waxa uu hadiyad ahaan u siiyey
guri qaali ah. Waxa uu rabaa in ay hooyadii guriga imato, laakiin David ayaa ka diiday arrintaas. Maalinkii xigtay, Oscar waxa uu bilaabay in uu ka soo muuqdo bandhigga TV-yada, tusaale ahaan joornaalada. Sida uu u kobcayo markii hore, waxa uu jecel yahay nolosha magaalada ee madadaalada ah, laakiin si tartiib ah waxa uu bilaabayaa in uu dareemo faaruq iyo caajis. Waxa uu bilaabayaa in uu helo taageerayaal badan si uu Oscar uga dhigo mid caan ah. David si bareer ah ayuu u sameynayaa sheekooyin been ah oo ku saabsan Oscar. Waxa uu xitaa u sameeyaa madxaf ku saabsan Oscar, halkaas oo uu ku soo bandhigo alaab aan kala sooc lahayn si uu uga faa'iideysto. Kadib, Oscar mudaharaadyo ku saabsan warbaahinta oo faafisay warar been abuur ah oo ku saabsan isaga. Ma doonayo inuu noloshiisa oo dhan sidan ku noolaado, waxana uu ka caajisay nolosha qofka caanka ah. Marka waxa uu ka codsanayaa David inuu joojiyo qandaraaska. David waxa uu u sheegay daabaca raba in uu la kulmo Oscar si uu buug isaga uga qoro. Markuu tan maqlay, ayuu go'aankiisii beddelay. Riyadiisii ahayd in buug laga qoro ayaa ugu dambeyntii soo noolaatay. Aad buu u faraxsan yahay. Si kastaba ha ahaatee, marka uu u tago in uu la kulmo qoraaga iyo daabacaha, waxa uu ogaanayaa in keliya ay xiisaynayaan iibinta buugaagta badan ee suurtagalka ah in ay faa'iido badan ka helaan. Waxay rabaan in ay buunbuuniyaan sheekadiisa, iyaga oo u sawiraya in uu aad u liitay yaraantiisii, iyo in ay ku daraan sheekooyin been abuur ah. Oscar marka uu intaa maqlay, waxa uu diiday in uu la shaqeeyo daabacaha. Maalintii xigtay, David waxa uu u yeedhay Oscar hooyadii, sababtoo ah waxa uu og yahay in ay Oscar u xiistay. Waxa ay timid xaflad ka socotay guriga Oscar. Natalia waxa ay keentay odhaah dhiirigelin ah, taasoo loo isticmaalo Oscar si loogu keeno guriga. Natalia way ku faraxsan tahay inay aragto wiilkeeda, laakiin Oscar ayaa si muuqata u murugaysan. Maalinka xigta, Oscar ayaa qalad sameeyay, isaga oo ka soo muuqday baahinta TV-ga oo toos ah. David aad buu u xanaaqay, waxaana uu Oscar daaha ka qaaday inuusan doonayn inuu noqdo nin aan isku jiidad lahayn. Waxa uu David ka codsaday in uu been abuur ku sameeyo dhimashadiisa si uu ugu noolaado nolol nabad ah. Warkii ayaa si degdeg ah u faafay. Qof kastaana waxa uu ka hadlayaa geerida Oscar. Saxafiyiinta ayaa maalin walba yimaada guriga Oscar si ay iskugu dayaan inay wareystaan hooyadii. Maalmo kadib, Oscar waxa uu beddelay aqoonsigiisii iyo muuqaalkiisii, isaga oo iska dhigaya inuu yahay curyaan. Sidaa darteed, waxa uu isku dhajiyaa kursiga curyaanka marka uu dibadda u baxayo. Oscar oo hadda la baxay dhiski ayaa waxa uu ka shaqeeyaa soo dhoweynta hoteel caan ah. Qol kasta wuu madhan yahay marka laga reebo hal qol. Dhiski waxa uu aadayaa si uu u eego qofka qolka ku jira. Waxa uu halkaas ka helay gabadh cusub oo u sheegtay in wax walba ay fiican yihiin. Markii uu ku dhowaa in uu soo baxo, ayaa gabadh waxa ay ugu yeedhay Dhiski magaciisa saxda ah ee Oscar. Isaga oo yaaban ayaa waxa uu ogaaday in gabadhu ay tahay Agatha. Waxa ay bilowday in ay ka shaqeyso hoteelka. Aad ayay ugu faraxsan yihiin inay ugu dambeyntii kulmaan mar kale. Maalinta xigtay, waxa ay tagaan meel, waxa ayna ka sheekeeyaan waxyaabo badan oo soo maray. Oscar waxa uu dib ugu noqday magaaladii hore si uu u arko in meeshu ay cidlo tahay. Madxafkii ay u fureen si ay ugu soo bandhigaan alaabaha ayaa sidoo kale la xidhay. Gurigiisii hore ayuu galaa, in muddo ah ayuuna ku jiraa. Markii qof si lama filaan ah uu albaabka u soo garaacay, waxa ay noqotay Agatha oo u labisay sidii yaraanteedii. Oscar ayaa dhoolla caddaynaya. Dhowr sano kadib, Oscar iyo Agatha way isguursadeen, waxayna ku nool yihiin gurigii carruurnimada ee Oscar. Agatha waxa ay xaamilo tahay uurkeedii koobaad. Oscar
waxa uu bilaabay in uu ka shaqeeyo nadiifinta daaqadaha. Filimku waxa uu ku dhammaanayaa Oscar oo ku labisan dharka Batman oo nadiifinaya daaqadda dabaqa sare, waxaana uu ku nool yahay riyadii carruurnimadiisa. Haddii aad ka heshay sida aan u soo gudbinay filimka, subscribe saar oo ka mid noqo walaalaha qalbiga. Mahadsanid.